Wararkii ugu dambeeyay ee duqeyn cirka iyo dhulka ah oo ka socota magaalada Maqalla ee caasimadda maamulka Tigreeda ee TPLF. Si aan u guda galno wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya, walaal saar aragtidaada ka dhiibo oo share garee si muuqaalkan u gaaro saaxiibo badan. Dowladda Federaalka ee Itoobiya ayaa dagaal cirka iyo dhulka ah ugu dambeyn ku qaaday magaalada Maqalla ee caasimadda maamulka Tigreeda kadib markii ay soo dhamaatay waqtigii loo qabtay in ay isku soo dhiibaan madaxda maamulka Tigreeda ee TPLF, iyadoo dowladdu ay horey u qabsatay deegaano, degmooyin iyo sidoo kale magaalooyin waaweyn oo ka tirsanaa maamulka Tigreeda, iyadoo magaaladii ugu muhiimsaneyd ee maamulka Tigreedu haysatay gacantan ay ku hayeen ee Maqalla maanta ay dowladdu weerar ku qaaday, kaasoo isugu jiray weerar cir iyo dhul ah. Waxaa xaafadaha magaalada Maqalla ka socda duqeyn culus oo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka Itoobiya, waxaana bilowday dagaal u muuqda inuu yahay midkii ugu dambeeyay uu Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha Itoobiya, ku doonayo in uu ku soo gabagabeeyo xasaradaha ka taagan gobolka Tigreeda oo uu dagaal ku dhex marayo ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya iyo kuwa maamulka Tigreeda ee TPLF. Hogaamiyaha xisbiga TPLF, Debretsion Gebremichael, ayaa fariin telefoon ah oo qoraal ah u diray wakaaladda wararka Reuters ku sheegay in Maqalla duqeyn culus ku socoto. Debretsion ayaa sidoo kale ku eedeeyay ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya in ciidamada deriska ay yihiin Eritrea ay garab siinayaan oo ay weerareen xeryo qaxooti oo ku yaalla gobolka Tigreeda si ay u qabqabtaan qaxooti horey uga soo qaxay dalka Eritrea. Afhayeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, Bilini Ziom, ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya aanay duqeyneynin goobaha rayidku degan yihiin, waxayna intaasi ku dartay in badqabka dadka rayidka ah ee reer Itoobiya ee ku nool magaalada Maqalla iyo gobolka Tigreedu tahay arrin mudnaan u leh xukuumadda federaalka ah ee dalka Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu shalay diiday in uu wadahadallo la galo maamulka Tigreeda ee TPLF hogaamiyaashooda, waxa uuna caddeeyay in ay xoogga saarayaan sidii midnimada dalkiisa loo ilaalin lahaa. Howlgalkan ayaa ah midkii ugu dambeeyay, waxaana dowladdu ay sheegtay in gacanta lagu soo dhigi doono hogaamiyaasha maamulka Tigreeda ee TPLF oo haatan dagaal kula jiraan ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya. Xisbiga TPLF ayaa awoodda dalka Itoobiya gacanta ugu jirtay ku dhawaad 30 sano markaasi uu kadib Abiy xukunka kala wareegay sanadkii 2018.